guddiga abaabulka banaan baxa isu soo banaan baxa la soo banaan baxayo siday u abaabuleen kii hore kana kii hore inuu ka sii weynaado oo dadka isu soo baxaan muujiyaan shucuurtooda muujiyaan wadanimadooda muujiyaan in gobolka banaadir dadka degan yihiin dad nabadgelyo badan laakiin haday xanaaqan aan la celi karin marnaba cid hor istaag ka taman jirto mudaharaadka waa دستور كاغبا قرنك حريه القول ان كاعلنا قف كيرا قف لا دغالماي واي wax barya male kuma diidi karo ilaaha ku gartay maalinta dalta xuriyatul qawl ilaahi ku siiyay waxa way sayyidina umar radiyallahu anhu warda abdullah ibn umar ibn aas ninka liiraad ayaa wiil reer masar oo la tartamay fardo ku la tartamay fardo racday sibaaqul khayl liiraad markay tartameen waa ka dhaqay hortiisa u tagay meeshii la rab in la tago wiilkii baayo qaatay waa garaacay ninka asaga aabihiiba oo waali ka ay masar sidana umar wiilkii warqad u soo qortay waa yimid madiina mid waa u sheegay sidana umar wuxuu yiri mata istacbadtum an-nas gormad adoonsa lahaydeen dadka waqad waladathum ummahatum ahraran hooyooyinkoodu waxay dhaleen iyagoo xur ah war hooyooyinkoodu waxay dhaleen iyagoo xur ah meen saasayn warbadan wax ma taraayo waxa la rabaa ficil la rabaa meesha in laga sameeyo dadka gobolka banaadir waxa la gudboon inay dhowrtaan sharafkooda inay dhowrtaan ixtiraamka ummaddu hayso Soomaaliya idil meesha la fiirinayo xamar waa hadii xamar bukooda Soomaaliya waa bukanaysa cid la baryaay ma jirto waa in la isu soo baxa odyaasha horkacay annaga aan ka midnahay dhalinyarada horkacayso haweenka horkacayaan waa in laga digtoonaada oo aan la diido waxyaabaha hadii ilaahay ku roon yahay hor istaaga dadka dhagjalka u siina isu soo baxa guriina ka soo baxa ilaahay ictimaada nafsadiina ku kalsoonaada waxa la rabaa shucuur muuqato jimcaha hadii ilaahay raali 26 maalintay tahay oo ummadda ay madaxa qabsato in meeshaas laga arko sidaas la doonay hadii ilaahay yiraahdo wax dhib oo kale la sameeyay male waa mudaharaad ban oo silmi ah maatay nabadgelyo ah hub lama wato afkayna hub afkayna carabkayna hub wax kala dhacay ilaahay waa markii labaad oo aan isugu imaanayno abaabulka banaanbaxa looga soo horjeedo kalitaliska dictatorka maxamed cabdullaahi farmaajo maanta maalintii labaad waaye aan isku imaanayno ujeedada isku imaatinkeena wuxuu yahay in aan soo bandhigno abaabulka iyo shaqada aan soo hayno ummadda aan u haynay meesha ay marayso inaan soo bandhigno walaalayaal maalinta jimcaha ah ee 26 bisha sidii aan hore ugu balansanayn waxaa jira banaanbixii la baajiyay la carqaladeeyay la weeraray jimcihii hore ee 19 February jimcahan insha Allah taala banaanbaxa uu qabsoomi doonaa wuxuuna ka qabsoomi doonaa daljirka dahsoon ayuu ka qabsoomi doonaa isla barkulantii hore aan ku ballanay ayuu ka qabsoomi doonaa dadka sidii hore abaabulkooda way ka wanaagsan yihiin way ka diyaar garow badan yihiin way ka tiro badan yihiin way ka tayo badan yihiin way ka niyad adag yihiin dadka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan diidaan muujiyaan afkaartooda ay ku diidan yihiin dictatorka kalitaliska inay muujiyaan afkaartooda ku aadan rabitaanka doorasho xor iyo xalaal ah ayay dadka Soomaaliyeed diyaar u yihiin sida aan wada ognahay Soomaaliya waxa ka hana qaaday dimuqraadiyad curdun ah dadka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin in ay difaacdaan dimuqraadiyadda curdunka ah inay difaacdaan oo ay ka hortagaan kalitaliska sidaas darteed maanta halkan waxaan isugu nimaanay inaan muujino shucuurteena inaan soo bandhigno waxyaabaha aan ugu talagalnay banaanbaxa inaan ugu qayb qaadano oo ay ka mid yihiin sloganiska waxaan soo bandhignay qodobka 20aad ee dastuurka
kumeelgaarka ee Soomaaliya oo fasaxaya dastuurka ee uu fasaxayo banaanbaxa in la qaban karo si fasax la'aan ah in la banaanbixi karo waxaan sheegnay in aan banaanbaxa la baaji doonin sinaba aan loo baaji doonin hadduu Ilaahay yiraahdo banaanbaxa uu qabsoomi doonaa 26 ayuu qabsoomi doonaa bishaan wuxuu qabsoomi doonaa jimcaha soo socoto wuxuu ka qabsoomi doonaa daljirka dahsoon ayuu ka qabsoomi doonaa ma diyaar garoodeen codku waa yar yahay ma diyaar garoodeen banaanbaxa ma loo diyaar garoobay kalitaliska in laga hortago diyaar ma loo yahay dimuqraadiyadda inaad difaacatiin diyaar buu tihiin kalitaliska ha dhaco sidaan wada ognahay jimcihii la soo dhaafay 19 bisha Febraayo waxaa si bareer ah loo weeraray labada madaxweyne hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxaa sidoo kale la weeraray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali khayre iyo murashaxiin kale oo asaga hogaaminay uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdikariin Guuleed iyo musharaxiinta dhamaantood waxaa wax la yaab leh madaxweynihii asaga xilka ku wareejiyay maxamed cabdullaahi farmaajo maanta inuu xabad la dhacay dhishiiko uu la dhacayo ayaa la yaab naqatay inuu maanta beebayaal ula soo baxay inuu baasuukayaal la dhacay madaxweynayaasha asaga ka horeeyay xasan sheekho xilka iyo calanka iyo madaxtooyada Soomaaliya ku wareejiyay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sheekh shariifo asaga oo ka dhigay ra'iisul wasaare shacabkan Soomaaliyeed bar asagoo Mareykanka qaxooti ku ah ayuu la dhacay labadoodiba ma kuwaasa qaran dumis ma shariifi xasana qaran dumis ma shariifi xasana qaran dumis ma safarmaaja yaa qaran dumis farmaajo meel walba oo laga taabto korkiisa waa dambi ogaada farmaajo waa dambiilo qaran waa eedeysano qaran wuxuu weeraray uu xabad ku bursanaay oo qori dhishiika ku bursanaay oo baasuuko uu ku riday airportka uu ku gubay ra'iisul wasaarihii 3 sano iyo barka asaga la shaqeynay ayuu baasuuke iyo rasaas tiro badan si arxan darro murashaxiinta kale u weeraray war ra'iisul wasaarihi asaga uu idin lahaa waa ra'iisul wasaare wanaagsan nin iga wanaagsan aan idin keenay markii uu meesha ka tagay inuu weeraro dilo lala tartamin doorasho laga hadlin laga hor imaanin ayuu farmaajo go'aansaday farmaajo waa kalitalis farmaajo waa kaligiitalis farmaajo waa kaligiitalis codkiina waa yaryaa farmaajo waa kaligiitalis codkiina waa yaryaa farmaajo waa kalitalis farmaajo waa kalitalis kalitaliska ha dhaco kalitaliska ha dhaco kalitaliska ha dhaco ha dhaco ha dhinto ha dhaco ha dhinto waxaan idin sheegayaa walaalayaal oo aan maanta idin cadeynayaa waddankan ma ka shaqayn doonto afkaarta afaweerki kama shaqayn doonto ninkaas dhagna wuxuu ku maqlaa afaweerki dhagta labaadna wuxuu ku maqlaa Abiy Ahmed wuxuu saaxiibo leeyahay amxaaro iyo balaayo iyo Etoobiyaan iyo Eritreyaan iyo walaxan la aqoonin ayuu saaxiibo leeyahay annaga waa ognahay ayaga dhagaha waxay ugu soo sheegayaan xasan iska leexji shariifna iska leexji kuwa kalena laay meeshana joog waa diidnay kalitalis waa diidnay kalitalis waa diidnay ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay ayagoo aan xabad ridin ayagoo aan hub soo qaadanin ayagoo aan dhibaato geysanin ayagoo aan wax qarbudin ayagoo aan wax iska boobin oo aan wax bililiqaysanin in ay soo qaataan xaashi ay ku qoran tahay farmaajo madaxweyne ma ahan waqtigiisa waa dhamaaday kalitaliska ha dhaco kalitaliska ha dhaco annaga intaasaan leenahay waxaan u baahannahay boqolaal kun oo qofood ilaa milyan qofood inay isku soo baxdo daljirka dahsoon kalitaliska loo sheego inuu dhacay waqtigiisana dhamaaday farmaajo shalay markuu imaanay banaanbaxay lagu taageero Soomahan maanta muxuu ku diiday banaanbaxay asaga looga soo horjeedo waa kalitalis farmaajo waa kalitalis farmaajo waa dictator farmaajo waa dictator farmaajo waa doorashadiid annaga doorashadiidna ma doonayno dictatorna ma doonayno qaswada ma doonayno waxaan ilaahay hortiisa ballan idinkaaga qaadaynaa maanta
farmaajo in maxkamad la gey doono sharciga la horgey doono la xiri doono cimrigiisa inta ka dhimana xabsi uu ka qaadan doono maxaa yeelay waa ninka magaaladan xirxiray hooyada jidka ku umuleysay kalifay waa ninka shacabka Soomaaliyeed Itoobiyaanka amxaarada u dhiibi jiray waa ninka ilmaha Eritrea u qaaday waa ninka balaayada wadankan ku dhacday oo dhan soo falkiyay waa farmaajo wax walba oo xun farmaajo ka sii xun ee ogaada waxaan idin ka rabnaa gudiyada xisbiga waxaan ka rabnaa inay dhaqaaqaan boqolaal kun ay soo bixiyaan fariimaha aad gaarsiiseen shacabka inaad sii wadaan guryaha idin dhiman inaad gargaraacdaan oo aad tiraahdaan warqadda oo casuumaadda banaanbaxa aad u geysaan gaarsiisaan aan u baahannahay yaa la baqanin maqaarkiina ha adkaado qalbigiina bir ha ahaado ogaada kuwa xilalka leedinkuugu dhiiba ogaada taariikhdooda hore iyo malafkooda hore soo akhriya bal fiiriya nin raashin kari jiray amni loo dhiibay suuragal ma tahay nin raashin kari jiray amni wax ma ka qaban karaa nin raashin kari jiray amni wax ma ka qaban karaa fiiri nin iska lugeynaya xamar weyne oo aan waxba haysanin oo shaatigiisa jeexjeexan yahay ayaa wasiir amni laga dhigay markaasaa la leeyahay dheh banaanbaxa waa xaaraan dheh ma banaanbaxa xaaraane banaanbaxa xaaraan miya waxaan u sheegaynaa dadka marka farmaajo kaamirada ay hor joogaan isaga qancinaayo markay annaga noo imaadaanna nagu qancinaayo in ay farmaajo xil inuu u dhiibto ayagoo iska lugeynaa xil in loo dhiibtay waxaas waa dhaqan dictator dadka masaakiinta ah lama abuse gareeyo walaalkeen wasiirka amniga shalay waxaa ku dhacay abuse gareen fikradu aaminsaneen oo ku hadlay waa beentiis ma aaminsano annagaa niyadiisa og annagoo noo sheegay soo baxa walaalayaal soo baxa hadalkiisa la qaadanin waa maasantiin wasalaam